waxaad u tartantay jagada madaxweyne ku-xigeenka Khaatume State waxaad u tartantay xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya waxaad la taliye u noqotay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake intaba waxaad qabtay mabda'a Soomaali weyn xillimaad aaminta adigu mabda'a Soomaaliya khilaafaadka hadda aad carrabaabteen wax niga iga horeeyay weeyaan wayna dhamaadeen waa la xaliyo badan waxa la arkaa qayb waxay ka yihiin Puntland andana cabasho badan bay ka qabaan Soomaaliya ayay qayb ka yihiin cabashay ka qabaan Khaatume ay sameeyeen cabashay ka qabaan Somaliland bay ku jiraan cabashay ka qabaan doonista shacbigaas waxay doonayaan muxuu yahay Axmed Cabdi Muuse dadku waxay u baahan yihiin nolol bay u baahan yihiin waxay u baahan horumar bay u baahan yihiin nabadgelyo u baahan yihiin diyaar bay u yihiin insha Allah taala anaga arrinta xaqiijinayna adigu maxaad ku soo korinaysaa doorashadiisa sanadkan xisbigan wuxuu astaan u yahay midnimadii Soomaaliland wuxuu astaan u yahay midnimadii Soomaaliland ma laga yaabaa haddii doorashadani aad ku guuldaraysato ama aad ku guulaysan weydo inaad Somaliland ka hulashado dhinaca Soomaaliya aad u leexdo horaa Soomaalida u tiri rag cadaalad waay sidii cawsha kale yaa Somaliland tan maanta oo dhan aynu ka sheekaynayno xuduudkeeda intee baad u taqaanaa musharax barnaamijka masraxa siyaasadda oo toddobaadkan uu marti ku yahay murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka Ucid ka daawo telefishinka caalamiga ee Somali News TV habeenimada Khamiista ee Jimcuhu soo galayo taariikhduna ay tahay 28 bisha 9aad ee sanadkan 2017 saacada bariga Afrika markay ku beegan tahay 9:45 daqiiqo habeenimo